su-aasheenan caawa ugu horeysa raqamkeeduna waa 525 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh maxamed waxaan ka weysaysanaa biyaha tubada ka socda mana tirino inta jeer aan dhaqno gacmaha iyo jirkuba ee la dhaqo ee sheekhow sidaas ma ku ansaxaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحن نبينا كسوغا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها إن حبنها مرمر دقي جري هل مر واحد صومالي وحيسي او تقانو وحكى له سوغان إنه النبي صلى الله عليه وسلم حبين كستا لبا غور دقي جرينا way suganta inuu xubin kasta marka laga reebo madaxa saddex goor dhaqi jirayna way suganta waajibku waxa weeyaan xubinka in biyaha la wada gaarsiiyo inta waajibka ah inta dhaqidiisu ay waajib ka tahay inay biyuhu wada gaadhaan intaas laazim ah wixii inta ka siyaadsan waa sunno tawa qodobka labaad inta goor ee dhaqday inaad ogaato iyaduna laazimo weysadu kuma xidhna weysadu haddaad xataa tirada yaa dhaqday xubnaha garan weyda way asaxaysaa laakiin mid baad iska ilaalin una badan markii tuubooyinka laga weysanayo biyahan iska socda dadku u badan yihiin waxa weeyaan in aad weysada ku xadgudubto xadgudubkaasi wuxuu noqon karaa inaad tiradii ka badiso waa xadgudub saddex inaad ka badiso waa xadgudub inaad meel loogu talagelinba biyaha gaarsiiso xubankii meel aan mashruucba ahayn gaarsiiso waa xadgudub inaad biyaha qadarkii ay ahayd kugu filaa wayse qaadadka inaad ka badiso biyihii ku ciyaarto iyadana waa xadgudub inaha waad iska ilaalin waxay ku soo aroortay xadiidka Abdullah ibn Mughaffal Ahmad ibn Majah ibn Hibban soo saaray wuxuu leeyahay rasuulkaan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya yakunu fi aakhir az-zamani qawmun ya'taduna fi ad-du'aa'i wat-tuhur aakhir az-zamanka waxa iman doona dad ku xadgudba bariyada alla bariga iyo dahaara qaadashada qabayska iyo wayse qaadashada dad ku xadgudba imaan doona nabi sallallahu alayhi wasallam marka waxa soo galaya inaad biyihii ku xadgudubto xadii aad u baahnayd inaad ka siyaadiso xubinkii inaad ka siyaadiso shariicadu sohdimihii ay u sameysay tahaara qaadashada hadaad gudbiso kaman aw kayfan waa xadgudubka ay shariicadu tilmaantay taa marka waad iska ilaalin si kale weysadu waa saxaysa wallahu a'lam